inkastoo wax kasta haybad iyo dowladnimo leh ay Soomaaliya ka burbureen xilligii dowladii dhexe, laakiin waxyaabaha wali lagu noolaan karo ee nool waxaa ka mid ah hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, kaasi oo siyaabo kala duwan uga dhex muuqanaya bulshada Soomaaliyeed. Firdawso waa mulkiilaha xarunta dhaqanka, cilmi baarista iyo akhriska ee Awjaamac magaalada Gaalkacyo, waxayna iga sheekeynaysaa waxyaabaha Soomaalidu dhaqan ahaan u leeyihiin iyo xaruntan fikradda lagu aasaasay. warshad dhan bay ahayd, caanaha lagu luli jiray, subaga la gala bixi jiray, ciirta oo dadku yogad bay u yaqaanaan meelahaas kale, ciirta ma aragtay aad iyo aad nafaqo badan u leh ayaa la gala soo bixi jiray, iyagana la cabi jiray. ma aragtay dadka baadiyaha jooga markay aad iyo aad barwaaqada u joogaan waaba daadin jireen. hadda laakiin lama daadiyo, aan xoolihii baa aad iyo aad u yaraaday. halkan waad arkaysaa waa kabada gacanta lagu sameeyay, aad iyo aad bay muhiim ugu tahay ma aragtay ummadda Soomaaliyeed. mar waxa laga dhigtaa kaarbad, mar ma aragtay aqalka Soomaaliga lagu quruxsadaa, mar ratiyaasha iyadoo duf litan hadda duf ma leh baa la saartaa ratiga marka waxay ka celinaysaa xanuun ma aragtay ay leedahay haamaha xanuunkoodii wax dhan bay ka celinaysaa. marka waxa waaye waa ishig dhiil yaraantii waa tana. halkan waa arkaysaa masafta waa taqaanaa, waa shay aad iyo aad muhiim ugu ah ma aragtay wax lagu haadinayo oo ma aragtay ishig si fiican bay ma aragtay dadku u jecel yihiin wax kasta ku haadsadaan ay ku sameystaan. tanaarki waa kana, tanaarka waxa waaye muufada ayaan ugu talagal oo ma aragtay dadka waxay sameyn jireen hili ma aragtay waxay ku duban jireen ma aragtay muufada iyo ma aragtay sabaayad waqti badan bay hayn jirtay dadka ma aragtay rimiga. marka tanaarkan aad iyo aad u ma aragtay muhiim u yahay. dhiilahan waa kala nooc, dhiila waa kuwa gacanta laga sameeyay oo waad arkaysaa, kuwana waa qori oo waa la qoray. marka kuwan gacanta waa la qoray, kuwana waa ma aragtay waa qaba laga sameeyay. tan waa shanladan waxa waaye ma aragtay dadka ma aragtay miyiga aad iyo aad wax u jecelaayeen isu nadiifiyaan, mar walba shallaysan yihiin. marka tintay inta u galiyaan bay ku socon jireen. marka waa shanladii ma aragtay madaxa oo ma aragtay lagu shallaysan jiray. mooyihii kashi waa kuwana oo mar walba iyagana ma aragtay lagu talagalo in ma aragtay ay wax lagu tunto oo hadii ii sheeg waa in qofku moogtay badarkiisa dadku isku kalsoonaayeen, badarkooda ayay ma aragtay ay sameeysan jireen mar walba inay tuntaan, mar canjeela ka dhigtaan, mar qada ka dhigtaan, mar casho ka dhigtaan. marka waxay na tusaysaa isku kalsoonidii Soomaalida. waxaa jira najmo oo kale anaga waxaan xaruntan ku haynaa akhris. waxaan rabnaa inaan ma aragtay aad iyo aad u dhiirigelino in dhalinyaradu timaado wax akhriso. hadda buuggan kale wuxuu ka hadlayaa tirarka nabadda. nabaddu ka hadlaya Soomaaliya sidii nabadda ma aragtay xeerka geedka hoos loo fariisan jiray oo marka buugag badan waxaan haynaa ma aragtay waxyaalo badan oo kala nooc oo ma aragtay dhismaha noloshaada ma aragtay xataa buugag ma aragtay iskuulada oo dhalinyaradu buugta ay ku jirto hadda maadkaas oo kale buugag waxaan ma aragtay haynaa in aan ma aragtay taariikhdii Soomaalida buugag waxaan haynaa ii sheeg aad iyo aad u kala gedisan oo qofku hadduu yimaado meeshan uusan marnaba ma aragtay uusan caajisin. Majmaadan Maxamed wararka STN magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug.